shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka cad madaxweyne Trump ayaa laga dareemayay hadaladiisa dabacsanaan aan hore looga baran wuxuuna sheegay inuu doonayo inuu la shaqeeyo xubnaha cusub ee la wareegay sareynta aqalka hoose waase haddii laga helo dumurqaadiyiinta ayuu yiri haddaba waxaan weydiiyey sida ay madaxweynaha u saameyn karto awoodiisa natiijadii doorashadii dhacday garyaqaan Cabdinaasir Cabdullaahi oo ah qareen degan gobolka Minnesota madaxweynaha awoodiisa si aad u saameynaysa sababtoo waxaan ognahay Mareykanka sharci ama hindiso madaxweynaha hadduu rabo inuu wax soo saaro baarlamanka labada aqal waa inay ku heshiiyaan aqalka hoose iyo aqalka sare baarlamanku mar alla markay raadinayaan sharci soo saaraan labadii aqal haddayna ku heshiinin sharci markaa ma imanaya Soomaalida Minnesota ayaa guushii doraad waxay u ahayd mid lama iloobaan ah kadib markii ay soo saareen 4 qof oo kuraas kala duwan ku guuleystay oo wada Soomaali ah waxay ahayd guushiyaasi dhacdo looga sheekaysanayay goob walba guri walba ama gaari walba oo ay saaran yihiin 2 qof iyo in ka badan waxayna dadkii Soomaaliyeed mahadiyeen soo bixi ay soo baxeen codadkii ay dhiibteen oo ay ku soo saareen dad iyaga kamid ah ugaas cashuur oo kamid ahaa odayaasha Minnesota ayaa leh waa guul in dadkeena codkoodii ay maanta wax ku qabsadeen wadankan cod baa wax lagu kala goostaa maantana waxaad aragteen codkiinii inaad ku goosateen oo aad dhalinyaradiinii ku soo saarteen musharaxiintii Soomaali Mareykanka ah ee guuleystay ma aha inay doorteen dadka Soomaaliyeed ee kaliya waxa musharaxnimadooda u ololeyn jiray dad Mareykan ah waxa codadkooda siinayay cid walba ama qoomiyad walba oo degan dalkan Mareykanka iyaga oo daneynaya barnaamijyadii kala duwanaa ee soo bandhigeen iyo waxqabadkoodii hore sida uu sheegay Cabdullaahi Bashiir oo kamid ah jaaliyadda Minnesota dadka maanta soo baxay ma aha community Soomaali ee kaliya soo saareen waxa soo saaray dad cadaan ah dad madow ah dad badan oo aan Soomaali ahayn maxay percentage-ka Soomaaliga ka qayb galay marka fiirisid doorashada waa dad aad u yar waxa la isweydiin karaa guud ahaan sida ay u saameyn karto Soomaalida iyo dadka kale ee Segalootiga ah isbedelkii dhacay waa kan mar kale garyaqaan Cabdinaasir Cabdullaahi Soomaali iyo hadaan nahay guud ahaanba immigrant community-ga si wanaagsan bay inoo saameynaysaa macnaheedu waxa weeye madaxweynuhu maalmihii u dambeysay hanjabaadyo badan oo bixinaya shuruuc badan wax ka bedelaya waxa taa kamid ah carruurta meeshan ku dhashaan in ka soo xataa dastuurkiisu awood u lahayn haddana waxyaabo badan oo waxa jira ay ka fikirayaan si alla si dadka lagu dhibaateyn lahaa maanta wixii laga bilaabo mar haddii isbedelku ay meesha January lagu gaaro awoodda markay gasho demokraatku ila wareegaan house kaasayto madaxweynaha hawshiisa dhan caqabad bay ku noqonaysaa sababtoo wax isaga iyo sanadka kaliya wax ma soo saari karaan waa inay kala gorgortamaan waxaan ognahay aqalka hoose xataa inay gabar Soomaaliya noogu jirto Ilhaan Cumar baa noogu jirto wax aad runtii loogu farxo inkastoo muddo sanad ah musharaxiinta labada xisbi intii ay ku jireen ololaha doorashada ay dadka guryahooda ugu imanayeen dadka Soomaalida qaar ayaa waxay qabaan in haddii ay bixiyeen wixii laga rabay ee ahaa codka inaa mar dambe xildoonada loo arkayn waxa sida ku mahmaahaya Cali Balcad oo kamid ah dadkii codkooda bixiyay doraad nagu dadkii codka bixiyay baan nahay dadkii aan dooranay waxaan rabaa inay siday albaabada noogu soo garaacay